haddii lagu weydiiyo waa kuma companiga ugu qiimaha badan dunida oo dhan waxa hubala inay maskaxdaada ku soo dhacayaan companiyada kale ah Tesla, Apple ama Meta laakiin xaqiiqada ayaa in qiyaasahagaas oo dhan ay khaldan yihiin sidoo kalena uu jira company guud ahaanba ka weyn dhammaan companiyadaas taqaano oo dhan companigaas oo lagu magacaabo Nvidia haddaba sidoo company sameeyo oo kaliya GPUs-ka uga qiimo batay guud ahaan companiyada ugu waaweyn dunida oo dhan sidoo kalena uu ku noqday hogaamiyahooda heer qiimihiisu maanta maraya in ka badan $4 trilyan dhanka kale siday maanta companiyo badan ugu tiirsan yihiin companigan iyo mideeda kale sidoo companigan oo la wareegay casriga tiknoolajiyada cusub haddaba sheekada companigan ayaa midaan innaba caqligaaga gelaynin iyo sida ay Nvidia sanado yarba heerkaas ku gaadhay sidoo kalena ay ula wareegtay wax walba inagoona muuqaalkeena maanta isku leeyahay sheekada waalida ee companigan iyo waliba bilowgii adkaayay oo soo maray. Hi, welcome to Nvidia. haddaba si aan u ogaano sheekada waalida ee Nvidia waxa ayadna sidoo kale laga maarmaan inaan ogaano asaasayaasheedii siiba gaar ahaan ninkii qaxootiga ah sidoo kalena ka dambeeyay asaasta companigan haddaba si guud companigan ayaa aslaantiisa la asaasay taariikhdu markaad 1993 ayadoona ay asaaseen saddexdan injineer sidoo kalena lagu kala magacaabo Jensen Huang, Curtis Bryan iyo waliba Chris Malajewski waxyaataba laakiin CEO-ga sidoo kale maamulaha companigan ayaa ninka lagu magacaabo Jensen Huang ninkan oo aslaantiisa ku dhashay wadanka Taiwan taariikhdu markaad 1963 haddaba ninkan aabiya ayaa mechanical engineer halka hooyadiina ahayd macallimada iskuul sida yaataba laakiin Johnson ayaa yaraantiisa ku soo qaadan wadankiisa hooyo asagoona isla markaas yaraantiisa ay ka soo qaxeen wadankaas sidoo kalena ay u soo wareegeen wadanka Mareykanka waliba asagoo waqtigaas jiridada 9 sano halkaasuna Jensen bilaabay inuu waxbarashadiisa ka qaatay ilaa ugu dambeyntii ka qalin jabiyay sidoo kalena uu ka baxay jaamacadda lagu magacaabo Oregon State University asagoona ugu dambeyntii halkaas ka qaatay shahaadadiisa electrical engineering-ka kadib qalin jabintiisii ninkan ayaa ka shaqo bilaabay shirkadaha lagu kala magacaabo LID Logic halkaas uu ka ahaa director iyo waliba sidoo kale companiga lagu magacaabo AMD oo uu ka ahaa chip designer haddaba sanado yar uu shaqadii ku jiray kadib ninkan ayaa mar kale dib loo bilaabay waxbarashadiisa jaamacad halkaasuna bilaabay inuu galo jaamacadda lagu magacaabo Stanford si uu halkaas ugu diyaariyo shahaadadiisa masterka ee mechanical engineering-ka asagoona ugu dambeyntii ay u soo ilaatay taariikhdu markaad 1993 waliba asagoo waqtigaas jiridada 30 sano dhanka kale marka loo yimaado labadiisa saaxiib ee lagu kala magacaabo Curtis iyo Chris ayaa ayaguna sidoo kale ah laba nin oo isku meel ka shaqeynaya waqtigaas ayagoona isla markaas u shaqeynayay companiga lagu magacaabo Sun Microsystem companigan oo isla markaas soo saarayaalka ah qalabka graphics-ka ee computerska haddaba saddexdan nin ay nasiib wanaag kulmisay shaqadoodu ayadoona mar Jensen loo diray inuu hawl ka soo qabto companiga lagu magacaabo Sun Microsystem ay halkaas isku arkeen labada nin halkaas oo ugu dambeyntii ka bilaabantay saaxiibtinimadoodu sida yaataba muddo yar kadib waxaa dhacday in companiga lagu magacaabo Sun Microsystem ay ka shaqeynayeen labada nin ee lagu kala magacaabo Chris iyo Curtis uu isbedel ku dhaco sidoo kalena ay ka guuraan nidaamkoodii hore midanoona isla markaas labada nin caqabad ku noqotay ayagoona ugu dambeyntii ku aasaday inay isaga tagaan guud ahaanba companigii haddaba ka tegidii ay ka tageen companigoodii kadib labada nin ayaa waqtigaas ku aansaday in la gaadho waqtigii ay iskood isku taagi lahaayeen sidoo kalena ay aasaasan lahaayeen companigooda qaaska ah laakiin waqtigaas la joogo wax walba waa riyo oo haba yaraatay waxay ka naxaan ma jiraan sidoo kalena ay ku aasaasaan companigooda gooniya ayagoona isla markaas u baahnaa caawimaad iyo waliba sidoo kale garab istaag haddaba waa markii ay wacdeen saaxiibkoodii ugu dhawaayay Jensen si uu isla markaas ugu soo biiro tiimkan laakiin dhibaatada ayaa ahayd in Jensen uusan haba yaraatay wax danayna u haynin arrinka saaxiibadiisa waqtigaas la joogo walow fikradu ay ahayd mid aad u cajabisay xisaabtan ku darso labadan saaxiib ma aysan u caddayn nooca company ay rabaan inay dhisaan waqtigaas iyo midda ugu darneed oo ahayd in ninkan lagu magacaabo Jensen waqtigaas haysta shaqo fiican oo uu ka qaadanayay mushaar aad ugu filan sidoo kalena ay ku tiirsanaayeen family dhan oo asagu wax ka sugaya midanoona dhab ahaantii aad ugu adkeyd inuu shaqadiisa uga tago company aan la isku hubin waxa uu noqon doono waxay yaataba ku celcelin badan iyo sidoo kale codsi joogta ah oo uga imaanaya labadiisa saaxiib kadib Jensen ayaa ku qasbanaaday inuu ugu dambeyntii ku biiro asxaabtiisa sidoo kalena uu ka ogolaado codsigoodii halkaasoo inuu ugu dambeyntii saddexdan nin go'aansadaan in kulankoodan taariikhiga uu ka dhaco maqaayadda lagu magacaabo Diners si ay halkaas uga wada hadlaan mustaqbalka companigoodan ayadoona kulankaas taariikhiga kadib ay raggan ahaayeen kuwa mar walba ku kulma maqaayadan maalin walba si ay diiradda ugu saaraan companigoodan ugu dambeyntii noqon doona companiga tiknoolajiyada ugu weyn dunida ee Nvidia waxay yaataba ugu dambeyntii raggan ayaa isku waafaqeen companigodan ay ka dhigaan wax la xiriira computerska xisaabtan ku darso waqtigu waa 9-meeyadii oo computerska waqtigaas ma aysan lahayn rajo sii weyn oo waqtigaas bay soo shaacbaxayeen waxay yaataba laakiin saddexdan nin ayaa markaas qiyaasayay in computerska ay waqti dhow noqon doonaan kuwa si degdeg ah ku fida sidoo kalena aan laga maarmin ayagoona isla markaas bilaabay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen casriga computerska laakiin su'aasha ayaa ahayd sidee ay uga mid noqon karaan casriga computerska iyo PC-yada haddaba raggan jawaabtooda ayaa ahayd video gameska sababtuna wax kale ma ahayn waa in waqtigaas kombiyuutaradu ay hayeen kuwa loo sameeyay oo kaliya qaab shaqo sidoo kalena aan lahayn haba yaraatay wax entertainment-iya
ayagoona dhanka kale kombiyuutarada waqtigaas aysan lahayn sameecado mikrofon iyo weliba muuqaalo ama wax graafikisa midanoona kombiyuutarada waqtigaas ka dhigaysa kuwaan wax faa'iido buuxda lahayn sidoo kalena caajisa waxay taba Nvidia iyo sidoo kale asaasayaasheedan ayaa waqtigaas bilaabay inay ka fikiraan sidii ay kombiyuutarada ugu soo kordhin lahaayeen 3D graphics si isla markaas kombiyuutarada ay ugu sahlaanaantay in lagu ciyaari karo video gameska sababta ugu weyn ee ay u doorteen video gameskan ay ahayd marka laga soo tagay inay ahaayeen kuwa qurxinay kombiyuutarska haddana video gameska ayaa waqtigaas kuwa aad u gudmeeyay waxay taba laakiin saddexdan nin ayaa markaas kuwaan haba yaraatay aysan wax dhaqaale ay ku bilaabaan iyo weliba magac ay u bixiyaan kambanigoodan ayagoona isla markii ay ideyada heleen bilaabeen inay guda galaan sidii ay u heli lahaayeen waxoogaa dhaqaalaha sidoo kalena ay ku bilaabaan kambanigoodan cusub ayadoona ugu dambeyntii ay u sahlaanaatay inay isku soo aruuriyaan lacag gaadhaysa $40,000 oo waqtigaas haddaba waxaa soo hadhay magaca waxay taba magacan ayaa magac laba macno leh ayadoona ay asaasayaasha kambanigan ay markii hore ahaayeen kuwa isticmaalay ereyga NV oo ay uga soo gaabiyeen next version ayagoona labadan xaraf si ay magac buuxa uga dhigaan ay isticmaalaan ereyga Laatiinka ee Nvidia ayagoona halkaas ugu dambeyntii magacan Nvidia la baxay 5 Abriil 1993 sida yaataba raggan ayaa isla markiiba bilaabay inay soo iibsadaan qalabka PC-ga oo aan waqtigaas ahayn sida uu maanta yahay ayagoona bilaabay inay kala dhigdhigaan si isla markaas ay u bartaan qaabka uu u shaqeeyo waxay yaataba inkastoo wax walba sidii loogu talagalay ay u socdeen laakiin dhibaatada ayaa ahayd in 40,000 aysan marnaba ku filnayn sidoo kalena aan marnaba lagu dhisi karin boqortooyadan technology ayagoona isla markaas u baahnaa garab joog saxa si uu mashruucan ugu hirgalo nasiib wanaag maadaama ay saddexdan ahaayeen kuwa waqti badan ku soo qaatay caalamka technology-ga waxaa sahlanayd in xiriiradii ay hore u soo samaysteen ay garab weydiisaan ayadoona ninkan lagu magacaabo Johnson oo isla markaas xiriir qoto dheer kala dhaxeeyay madaxdiisii hore ee LIC Logic midanoona keentay in ugu dambeyntii ay halkii ku helaan maalgelin gaadhaysa $20 milyan sida yaataba laakiin Nvidia ayaa isla markiiba suuqa ku soo gashay guuldarraan innaba caadi ahayn ayadoona guuldarradaas ay uga timaaday qalabkoodii ugu horreeyay ay suuqa ku soo galeen ee lagu magacaabayay MV1 qalabkan oo inay isla markaas soo saareen dhammaadkii 1995 haddaba inkastoo qalabkan si fiican looga shaqeeyay sidoo kalena ay wax walba u dhammaystirnaayeen asagoona isla markaas lahaa 2D iyo weliba 3D graphics iyo weliba muuqaal samayn aad u sarreysa haddana nasiib xumo isla markii ay suuqa soo galeenba waxaa dhacday in hawada lagu cuno sidoo kalena ay Microsoft suuqa kala wareegto ayadoona isla markaas khasaaradan degdega ayba kaliftay in la joojiyo mashruucii xigay ee MV2 mashruucan ay ugu talagaleen inay ku xijiyaan waxay taba laakiin asaasayaashan ayaan halkaas ku dhiibin ayagoona cashir buuxda ka qaatay khasaaradan xoogan sidoo kalena isku diyaariyo mashruuc kale oo ay markaas awoodooda oo dhan isugu geynayaan mashruucan oo ahaa Riva 128 haddaba waxaa xusid mudan in waqtiga ay Nvidia soo saaraysa mashruuca Riva 128 uu ahaa rajadoodii ugu dambeysay ayadoona haddii uu mashruucan khasaaray halkaas ugu dhammaanaysa riyadii ay sanadadaas oo dhan soo dhoodhoobayeen sida yaataba nasiib wanaag waqtigii iyo dadaalkii ay geliyeen Riva 128 kuma darin ayadoona isla markaas qalabka noqday midkii suuqyada dib ugu soo celin lahaa dhanka kale qalabkan ayaa sidoo kale lahaa GPU aan innaba caadi ahayn sidoo kalena la tartami kara dhammaan tartamayaashiisa haddaba ugu dambeyntii marka uu Riva 128 sidaas suuqa soo galay waxaa dhacday in muddo isla 4 bilood gudaheedba lagu iibsaday in ka badan 1 milyan oo xabo halka marka la barbar dhigo qalabkoodii hore ee MV1 la iibsaday oo kaliya 1,000 xabo midanoona 1997 Nvidia uga dhignay sanadoodii ugu wanaagsanaa ay soo maraan ayagoona sanadkaas wax walba dib u soo laba ceshtay and that time 1997 was probably Nvidia's best moment and the reason for that was our backs were up against the wall we were running out of time we were running out of money and for a lot of employees running out of hope haddaba intaas kadib Nvidia ayaa mar kale bilowday inay shaqadooda si laba jibaaraan ayagoona isla markiiba bilaabay inay isla sanad gudaheedba ay soo saaraan mashruucoodii xigay ee Riva TNT ayadoona mashruucan lagu magacaabo Riva TNT kadib ay Nvidia si toos oo noqotay company public midanoona ka dhigan in markan ayba yihiin company la aqoonsan yahay sidoo kalena wax walba si fudud ku heli kara si ay isla markaas u xaqiijiyaan wax intaas ka sii weyn haddaba tallaabadii ugu horreysay ay Nvidia qaado waqtigaas ayaa ahayd soo saaridii mid ka mid ah produktyadoodii ugu wanaagsanaa waqtigaas oo ahaa jibkii lagu magacaabayay GeForce 256 jibkan oo isla markaas mid aan suuqyada hore loogu arkin ayadoona sidoo kale jibkan mid sii kordhinay sidoo kalena fudud ka dhigay shaqada computerska ayadoona uu dhanka kale lahaa application badan oo dhanka gamingka sida yaataba taxanaan lagu magacaabay GeForce ayaa markaasuna mid bilowday dhanka kale Nvidia ayaa sidoo kale heshay waqtigaas mid ka mid ah dealkoodii ugu weynaa dealkaas oo la galeen shirkadda weyn ee lagu magacaabo Microsoft ayadoona dealkaas waa dealkii weynaa ee Xbox haddaba labadan shirkad ayaa isku qacan qaaday dealkan qiimihiisu gaadhay 500 milyan ee Xbox ayadoona Microsoft ay u qacan gelisay shirkadda Nvidia si ay uga shaqeyso mashruucan weyn ee Xbox ayadoona ay Nvidia mashruucan u isticmaalisay jibkoodii ugu dambeeyay waqtigaas lagu magacaabay GeForce 3 oo ay soo saareen 2001 haddaba fursadahan isxigxiga ayaa Nvidia ka dhigtay mid uu sii furfuray wadooyin kale oo inay sii xaqiijiyaan waxaan hore loo arkin
midaanoona sanadkaas ay Nvidia heshay dealkan Xbox ka dhigtay in revenue-ga company-gan uu 3 jibaarmo sidoo kalena uu kor u dhaafay $1 bilyan. haddaba saaxiibayaal intaynaan qaybta kale u guda gelin fadlan ha ilaawina channelka subscribe saarato si muuqaalada xiisaha badan ee aan soo wadna aysan ku dhaafin aana guda galno muuqaalkeena. dhanka kale intii waqtiyadaas lagu guda jiray Nvidia ayaa sidoo kale bilowday inay iibsato dhammaan kambaniyada ay islaayeen waxbaad ka faa'iideysaan sida yaataba Nvidia ayaa waqtigaas xaqiijisay ujeedadoodii ahayd inay soo saaraan jibka ugu wanaagsan ayagoona xaqiijiyay ujeedadaas weliba waqti kooban gudaheed sidoo kalena soo saaray GPUs-kii ugu wanaagsanaa ayagoona kor u qaaday caalamka graphics-ka iyo weliba design-ka. haddaba inkastoo waqtigaas Jensen ahaa mid taagnaa meeshiisii ugu sarreysay haddana midda kale uu sii ogaa ayaa ahayd in haddii uusan booskiisa xajisanin sidoo kalena uu wax yar oo qalada sameeyo uu isla markaasba dhulka gelayo sidoo kalena hogaanka lagala wareegayo ayadoona waqtigaas la tartamayaasha Nvidia sida Aydona oo kale ay markaas ayaguna ahaayeen kuwa xawli ku socday waxa yaataba laakiin waqtigaas Nvidia ayaa ahayd oo kaliya kuwa haystay dhanka gaming oo kaliya ayadoona ninkan lagu magacaabo Jensen uusan markaas ku qanacsanin oo kaliya qabsashada hal suuq oo waxa uu rabay in boqortooyadiisana isku maamusho waxyaabo kale oo badan asagoona isla markaas diyaar u ah goorta GPU-yadiisana awood badan loo isticmaali lahaa meelo kale sida yaataba sheekada dhabta ay kaliftay in Nvidia ay ka soo gudubto kaliya shirkada u sameeyay suuqyada gaming-ka GPUs awood badan sidoo kalena ay isku bedesho shirkada ugu weyn dunida waqti xaadirkan ayaa la sheegay inay soo bilaabantay sanadadii 2000 ayadoona qolo cilmi baadhista sidoo kalena samaysa baaritaanada ay isticmaalaan GPUs-ka Nvidia midaanoona natiijada ay kala kulmeen ay layaab ku noqotay ayagoona ka war helay in baaritaano maalmo iyo weliba toddobaad ku qaadanayay markii hore ayba hadda ku samayn karaan muddo saacada ah marka ay isticmaalayaan GPUs-ka Nvidia midaanoona dhab ahaantii waqtigaas ninkan lagu magacaabo Jensen kusii dhiirigelisay in company-giisan uu qaado casri cusub. And one day, about 6 years ago, a whole bunch of researchers discovered that our GPU was perfect for deep learning. haddaba isla waqtiyadaas ninkan ayaa bilaabay inuu dhexgalo sidoo kalena uu ku biiro caalamka deep learning-ka iyo weliba suurtagalnimada AI oo waqtigaas bilow ah sidoo kalena aan la isku hubin waxa uu noqon doono iyo weliba inuu gaari doono meesha uu maanta marayo laakiin company-gan lagu magacaabay Nvidia ayaa waqtigaas qaatay halistan aan la isku hubin ayadoona Jensen uu qaatay go'aanka lama filaankaas sidoo kalena uu ku daafeeyay wax cusub midaanoona dhalisay in waqtigaas ay isku daygooga sameeyaan sidoo kalena ay maalgeliyaan sidii ay u heli lahaayeen cilmi baarayaal AI oo la isku hubo ayadoona dhab ahaantii talaabadan ay Nvidia waqtigaas qaaday ay bedeshay kaliya maaha company-gooda ee weliba sidoo kale caalamka technology-ga oo dhan midaanoona ugu dambeyntii nasiib wanaag ka faa'iiday weliba si aan inaba caadi ahayn. dhanka kale waqtiyadaas u dhexeeyay 2000 ilaa 2010 Nvidia ayaan ahayn oo kaliya kuwa qarash gareynayay AI ayagoona dhanka kale isku dhex waday shaqooyin kale oo badan sida inay heshiisyo la gaadhaan shirkadaha baabuurta ee automatic-ga ayagoona dhanka kale soo saaraya jibyo kale kuwaas ay u sameeyeen taleefanada halka dhanka kalena ay ahaayeen kuwa sii wada soo saaristii GPUs-kooda iyo weliba taxaniya GeForce sida yaataba ugu dambeyntii waxaa la gaadhay waqtigii ay intaasoo san sugayeen sidoo kalena ay isugu geeyeen cilmi baarayaashooda oo dhan waxaasoona ahaa artificial intelligence ama caqliga macmalka ee AI ayadoona isla markaas la gaadhay waqtigii ay wax walba bannaanka imaan lahaayeen sidoo kalena la ogaan lahaa meesha uu gaari karo cilmigan cusub ee AI haddaba waa markii la soo daafeeday OpenAI ama sidaa u taqaana ChatGPT sida yaataba sidaan dhammaantiin wada ognahay curiyaashan sida ChatGPT oo kale ayaa u baahan process badan si uu u xalliyo waxyaabaha loo dirayo weliba si dhaqso ah isagoona isla markaas u baahan GPUs aad u awood badan. Our advances depend on GPUs being fast. Speed of our computers is in some sense the lifeblood of deep learning. haddaba qiyaas company-ga ay ku qaadatay waqti badan sidii uu dhisi lahaa GPUs-kaas awoodda badan ee qaban kara shaqadan waad saxan tahay Nvidia sanado ka hor cidna isma lahayn ee ayaa noqon doona mid loo baahan doono sidoo kalena faa'iido leh laakiin maanta dhammaantiin waan aragnaa heerka uu maray iyo sida uu cirka u galay midaanoona Nvidia ka faa'iideysashadaas ay ka faa'iideystay ee ay ka dhigtay inay ka faa'iido lacag gaadhay balaayiin dollar sidoo kalena ay isku bedeshay company-ga ugu weyn dunida ayadoona marka laga soo tago OpenAI ay sidoo kale Nvidia isku sii fidisay AI kala duwan kuwaasayna ayadu power siiso haddaba Nvidia ayaa maanta la dhihi karaa sababta ugu weyn ee ay ku dhaaftay dhammaan kambaniyada ugu waaweyn dunida oo dhan ayaa ah inay la jaan qaaday sidoo kalena ay maalgashatay casri cusub ayadoona la dhihi karo in guushooda ugu weyn ay ka timaaday dhankaas iyo AI dhanka kale waqti xaadirkan la joogo company-ga Nvidia ayaa ah mid ay ku tiirsan yihiin sidoo kalena ay ku dhaqdhaqaaqaan kambaniyo badan oo aad u waaweyn ayadoona markaad fiiriso wax walba u baahan xawaaro sare iyo sidoo kale GPUs awood badan ha ahaadaan shirkadaha AI shirkadaha gaming-ka iyo weliba xitaa shirkadaha crypto ay tahay shirkadani mid awood siisa haddaba ugu dambeyntii company-ga lagu magacaabay Nvidia ayaa bisha noqday company-gii ugu horreeyay ee xidhay tiro gaadhaysa $4 trilyan asagoona isla markaas afka ciidda u daray dhammaan kambaniyadii ugu waaweyn caalamka oo dhan sida Apple iyo Microsoft oo waqtiyo badan hogaanka hayay midaanoona inta uu ninkan lagu magacaabay Jensen uu hogaanka ayaa aan marnaba istaag lahayn haddaba adiga maxay kula tahay maadaama uu Nvidia waqti xaadirkan yahay company-ga ugu weyn ma kula tahay in booskeeda ay sii xajisan doonto mise isla muddo yar kadib hogaanka waa lagala wareegi doonaa